maalin maalmaha ka mid ah sanadkii 2017 Moshe oo ah askari ka tirsan ciidamada Israa'iil isagoo ku dhex jira Facebooka mar kaliya waxa uu soo baxay codsi saaxiibtinimo oo ka yimid gabar indhihiisu markay ku dhaceen shaashada wuxuu yiri tan waa gabadhii noloshaada wuxuu si degdeg ah u aqbalay codsiga saaxiibkiis oo ah sargaal sare ayaa isna nasiib u yeeshay inuu fareen isla noqdo gabar Brazil ka timid maalmo ayaa ka soo wareegtay xiriirka askariga gabadha ayaa sii xoogaystay kalsoonidiina way korortay warago niyadu wali wax dareemaynin gabaran waxay sheegtay inay ka shaqeyso waxda xabsiyada Israa'iil maalin maalmaha ka mid ah waxay weydiisatay askariga inuu soo dejisto application cusub si ay u helaan habsi gaar ah oo ammaan u ah wada xiriirkooda askarigiina uu soo dejistay applicationkii balse waxa dhacday in applicationkii uusan si fiican u shaqeynin way isku dayeen marar badan balse kuma aysan guuleysan sidaas darteed waxay u noqdeen wada sheekaysigoodii Facebook sidii hore iyadoo xaalku sidaas yahay אמרה בואו נוריד איזה אפליקציה ביחד נוכל לדבר פתאום אני מגלה שזה לא בחורה שזה חמאס adkaatay sidaad maqashay gabadhii ka dambeysay saashada waxay ahayd xubin ka tirsan cutubka cyber ee qasaam abkii ay soo dejiyeen wuxuu ahaa qalab basaas kaasoo taleefanka askariga la geliyay qalab dhageysi muuqaal iyo xog ururin ah tan waxay u suurtagelisay qasaam inay gasho taleefanada tobanaan askar Israa'iil ka tirsan ciidamada Israa'iil waxa la helay xogo muhiim ah xalaal calayk balse aan isweydiino xagee arrintu ay ka soo bilaabatay galka xasanaad ee Xamaas waa xeelad cusub oo qasaam isticmaashay in ka badan hal mar sida uu sheegay sirdoonka military Israa'iil applicationka basaasnimada ee qasaam ku xirtay taleefanada askarta wuxuu siiyay awood ay kula socdaan dhammaan xogaha ku jira taleefanadooda sawiro codad fariimo baraha bulshada iyo xitaa qaabka ay isku fidiyaan ama ay u degan yihiin ciidamada Israa'iil ku sugan xadka Gaza waxa sidoo kale la ogaaday hubka ay isticmaalaan sawiro ayaa laga qaaday qolalka howlgalka saldhigyada kormeerka tani waxay siisay qasaam fursad ay ku fahmaan qorshaha dagaal ee Israa'iil xitaa qaar ka mid ah xogahaas waxa laga helay wada hadal toos ah oo dhex maray askarta gabdhaha iyadoo askarta isku dayeen inay soo jiitaan oo xiriir qoto dheer la sameystaan gabdhaha su'aalo muhiim ah ayaa halkan ka soo baxay goorma ay ahayd markii ay qasaam yeesheen ciidan cyber ah yaa aasaasay sidee ay u shaqeeyaa sideena ku howlgalaan Israa'iil miyay isku dayday inay ka hortagto ama xitaa iska caabiso weeraradan miyay ku guuleystay war saaxiibyan su'aalo tiro badan kugu daalinay aan u gudagalno mowduuca barnaamijku waa dah gadaashiis aniguna waa dil jiray sanadkii 2014 hogaamiyaasha military qasaam waxay u tageen in qadarin badan oo reer Falastiin Jordan ah noloshiisii dibadda isaga soo tagay una guuray magaalada Gaza ninkaas waxa la oran jiray Jumca ad-Dahla ilaahay ha u naxariistee waxa lagu dilay dagaalkii Sayful Qudus ninkan ma jirin howl loo diro oo san si fiican u dhameystirin gantaalada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo shaqo walba oo loo diraba si heer sare ah ay ugu soo baxayeen waxa lagu yiri Jumco waxaan rabnaa inaad aasaasto cutub gaar ah oo cyber ah wuxuu ururiyay koox si fiican ayuu u tababaray kuna bilaabay inuu aasaaso ama dhiso cutubka dagaal ee elektarooniga tijaabadii ugu horeysay waxay ahayd weerar lagu qaaday Kibbutz Melfasim oo u dhow xadka Gaza waxay galeen nidaamkii korontada waxayna muquuniyeen dhammaan xarumaha beeralayda dhirta qoraxda biyaha hal riixid ay ku jiri kareen korontada hal riixidna dib ay ugu soo celin kareen tijaabadii labaad oo ay sameeyeen waxay dhacday 24 December 2017 6 saac ilaa 22 daqiiqo oo duhurnimo email ayaa ka yimid shirkadda korontada ee Nears Oils waxa lagu sheegay in cilad technical ah ay jirto laakiin waxa run ahaantii dhacay wuxuu ahaa weerar labaad oo lagu qaaday nidaam kale oo la mid ah kii hore markii ay guuleysteen labadii weerar qasaam waxay tiri hadda ayaynu diyaarnahay waxay bilaabeen shaqo dhab ah waxay jebiyeen isgaarsiintii codka ee ciidamada Israa'iil waxay weerareen agabka telefoonka ee gaasinka waaxda cyberka ee warshada ciidamada Israa'iil 19 GB oo xog ah ayayna kala bixeen waxay galeen nidaamka Edge ee shirkadda gaadiidka waxay hakad geliyeen nidaamka kormeerka ciidamada Israa'iil ee daanta galbeed waxay gudaha u galeen kaamirooyin amni xarumo sirdoon goobo dawladeed iyo telefoon askar marar badan waxay soo rideen diyaaradaha Israa'iil ee nooca Skylark weerarkii cyber ee ugu bilaarnaa qasaam waxay fulisay 4 May 2019 waxay galeen nidaamka korontada kuwa amniga dawladda iyo ciidamada kuwa cirka dhulka iyo baddaba Israa'iil waa ay dareentay waxay isku dayday inay ka hortagto weerarka waxay sameysay weerar cyber oo ka dhan kuwa qasaam laakiin waa ay ku guuldareystay markii ay iska caabi waayeen waxay gooyeen internetka balse xitaa arrintaasi uma suuragelin inay joojiso weerarka wuxuu gaaray in ka badan 30,000 oo bartilmaameed ugu dambeyntii Israa'iil waxay adeegsatay diyaarado dagaal oo military si ay u burburiso xarunta laga hagayay weerarka waa markii ugu horeysay taariikhda adduunka weerar cyber ah loo adeegsado diyaarado dagaal laakiin weerarkii qasaam wuxuu ku dhamaaday sidii loogu talagalay diyaaradaha iyo internet la gooyo midna muusan celin sidee bay qasaam loo cayaartay
nidaamyada digniinta Israa'iil. Digniinta Israa'iil Siren marka ay soo baxaan warbaahintu waxay tiraahdaa waxay u badan tahay gantaal ama diyaarad ama qalad farsamo oo jiro. Qaladaadkooda farsamo aad bay u bateen. maxaa dhacay? cutubka Cyber ee Qassam oo hogaaminaya Tahla waxay weerareen shirkadda IGLU, shirkadda xakamaysa nidaamka digniinta. waxay galeen sayfradooda, waxay la baxeen dhammaan xogihii ku jiray, kadibna waxay bilaabeen inay marna daaraan damiyaan qayladhaanta ama sirenka digniinaha Israa'iil. Israa'iil markay weerareen afka labadii ayay furteen. waa qalad. nidaamka si lama filaan ah ayuu u shaqeeyay. intaa bay ku xataabeen. ha yeeshee cidda ku dhedheelaysay waxay ahayd ciidamada Cyber ee Qassam. Qassam waxay aasaastay koox kale oo magaceedu yahay Ciidanka Qudus ee Elektarooniga. ujeedka ururkan wuxuu ahaa in la soo ururiyo dhammaan kartida cyberka ee muslimiinta si loo beegsado Yuhuudda. kooxdani waxay xoojisay Qassam waxayna balaarisay xiriirka caalamiga ah. tani waxay sababtay weeraro malaayiin ah, waxayna Israa'iil ku abuurtay daal iyo culays gudaha ah. weeraradii cyberka ee ka horeeyay duufaantii Al-Aqsa, sida ay sheegtay Kristen Dunson, khabiir ka tirsan Google Threat Analysis Group. Black Atom bishii September 2023 waxay tilmaamaysadeen injineerada barnaamijyada ciidamada Israa'iil waxay beegsadeen LinkedIn si ay ugu diraan shaqooyin been abuurka. markii la soo xiriiray waxay u diri jireen dukumiintiyo lagu leeyahay dawlad gareysta, taasoo taleefanada si buuxa gacanta ugu geli jiray weeraryahanada soo qaada weerarka. Red Viber tan iyo 2012 waxay jebiyeen codsiyo dating apps si ay u bartilmaameedsadaan askarta. abkan wuxuu u shaqeynayay si virus ah. markii uu bilaabmay weerarkii duufaantii Al-Aqsa ee 7 Oktoobar, weerarkii cyberka ah wuxuu dhacay kahor intaan la ridin gantaalada. waxay jebiyeen nidaamyada qubadda birta ah, waxay damiyeen isgaarsiinta, raadaarada, internetka iyo xiriirka gudaha. waxay galeen seefrada, xogta ciidamada iyo kaamirooyinka. waxay hagadgeliyeen in ka badan 100 website oo dowladeed, bangiyo, jaamacado, warbaahin iyo xafiisyada boostada. waxaa la weeraray xarumaha korontada, biyaha, softweerada iyo xitaa xarumaha caafimaadka. shirkadda Cloudflare waxay sheegtay in weerarku uu gaaray 1.1 milyan codsi ila biriqsigii. sidee bay Israa'iil arrinkan ugu falcelisay? markay arkeen khasaaraha sanadlaha inuu gaarayo 12 bilyan oo shekel, waxay 2022 xulfaysteen UAE, Imaaraadka, Bahrain, Morocco si ay u sameeyaan Cyber Defense Platform. sanadkii 2024 Israa'iil waxay dhistay Iron Dome Elektarooniga si ay uga hortagaan weerarada cyberka ah, laakiin marna maysan ka horjoogsan Qassam inay fuliyaan weeraradooda. dagaalka Cyber ee Qassam wuxuu noqday tiir cusub oo dagaalka ah. injineerada muslimiinta halkii ay u shaqeyn lahaayeen shirkadaha caalamka waxay doorteen inay xirtaan dareyska military kuna biiraan dagaal ka faa'iido badan aakhiriya adduunba. markii Israa'iil ay bilowday inay si dhab ah u qaadato dagaalka cyber, Qassam waa hore ay ka sii adeegtay. muuqaalkan kan xiga waxaynu ka arki doonnaa dagaalyahano cyber ah oo muslimiin ah, kuwaasoo ka soo kala jeeda dhammaan wadamada caalamka. insha Allah saaxiib yaal waad aragtaan akoonku waa bilow. haddaan idinkii taageerin waxaa suuragal ah inaan si degdeg ah u niijabo. yaani liini jabin. waxaan idinka codsanayaa inaad taageero inoo muujisaan, nana soo dhaweysaan. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. في أمان الله.